Guud ahaan dadka Muslimiinta ee ku nool dalkan Kenya ayaa si weyn ugu diyaar garoobaya damaashaadka munaasabadda Ciidul Fitriga oo maalmo kooban una inaga xigaan. Magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waxaa ku nool Soomaali badan kuwaas oo ganacsiyo kala duwan ku haysta. Waxaana ay si aad ah ugu diyaar garoobeen farxadda ciidda iyagoona dhammaan ganacsatada suuqyada keenay agabyada kala duwan oo ay u baahan yihiin dadweynaha isu diyaarinaya farxadda ciidda. Goobaha lagu iibiyo noocyada dharka, kabaha macmacaanka sida buskudka xalwada iyo meelaha lagu tolo dharka ee harqaamada ayaa waxay ka mid yihiin xarumaha sida weyn loogu dareemayo mashquulka ciidda. Qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee kuwa yaryar ayaa ka warramaya qaabku uu yahay ganacsiga xilligan loo diyaar garoobayo Ciidul Fitriga iyo isbeddel dhanka qiimaha oo ay sheegeen in sanadkan ganacsiga uu ku yimid. waxaa la gadanayaa hadda anaga dharka gadno waa dharka Islamic dressing la dhaho khamiisyaha ay ka mid yihiin caamadaha ay ka mid yihiin dharkaasi dadka aad u rabaan oo rabaan inay carruurtii dadkaba ay ku labistaan oo dadku diyaar garow xoog leh ku jiraan dadka maadaama oo hadda ciid ay soo dhaw ama wallahi billahi kulay bacshara waligeey ma arkin tan oo kale dadka waxa way sanadkan way ku daadsan tahay wax lacag haystaan ma jirto wax iibsado ma lahan alaabtii wadana sidaan u soo dhignay marka bacshirada sidii hore ma aha sidii soonkii hore loogu bartay ma dadka waxaan u maleynayaa sanadkan inaysan macna dhaqaale xumo ah ciidda isma weydiiya iibsiga khamiisyada nin walbaba yani wuxuu u diyaar garoobayaa maalintii ciidda nin walbaba isticdaad uu sameeyaa yari weynba raggu khamiisyo wada gadanayaan sida u badan awalna lama gadan jirin laakiin dhawaanahan dambe aad ba khamiisyada loo gataa laakiin marka khamiisyadu sanad hore si ahaayeen hadda farq weyn u dhaxeeyo waayo sanad hore xogaa aad bay u raqiis u ahaayeen tiriibkan dollarkii maadaama uu kacay oo aad uu qaali u noqday khamiisyaduna aad bay hadda marka kor u kaceen bilaaw Axmed Nuur Cali Macalin waxa waaye aad iyo aad ayaan ugu diyaar galownay ciidda waxaa buskudaha nooc waa keenay oo jeeda maaragtay waxa simooga buskudka maaragtay wax kasta waa diyaar xaladu waa diyaar moofka xaladu waa soo diyaarinay waxa waaye hadda custom kale suganaa maaragtay dadweyne aan suganaa walaal aniga waxaan iibiyaa kabaha buudka jambalka obinka kabahaasaan iibiyaa marka ciidii baan u dabaaldegaynaa kabaha maaragtay walaal si fiican bayna noogu socdaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxay u baahnaayeen haday halwo hadii keeg uu yahay haduu buskud yahay hadii uu cun yahay shuushumo haduu yahay waxyaalaha ciidda aad loo isticmaalo kulli waan u diyaarinay wallahi horta sida aad ragay dumarku talanay hadda dumarka kala waxa kamid ah cabaayadana kala waxa ay talanayaan cabaayadan dumarka cabaayadana talanay raggan waxay sameeyaan shaarka iyo sida kale waa kana wala soo gaday waxa way shatigan waxa lagu sameeyaa waa la yeelanaa fitina laga dhigaa qof markii ma helayso shaas ku eg cabaayadana waa koona sidoo kale fashion kala loo sameeyaa fashion kala dadahayna way darabtan way tuseena marka si aad iyo aad loogu diyaar garoobayaa turista dharka harqaanka iyo dharka Soomaalida dhamaanteedba dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo si aad ugu mashquulsan gadashada agabyada kala duwan oo ay ugu horeeyaan qalabka labiska ayaa dhankooda sheegay inay si aad ugu faraxsan yihiin imaanshaha farxadda ciidda wallahi magacayga waxa la dhahaa Axmed Maxamed Nuur Axmed Cadaawe magaalada Nairobi aan deganahay wallahi dadka islaamka always waxay u diyaar garoobaan ciidda si ay u farxaan ilaahayna u weyneeyaan anagana kulay dhar cusub ma gadan laakiin qalbigan ka diyaar garoon si aan u farxna kaliya ma sha Allah aad baan u faraxsanahay gaar ahaan khamiisyo la qaadanay maanta kale si fiican ba loo iidaya insha Allah ta'ala dadku u jeedaan ma sha Allah markaan waxaan leenahay dadka ma sha Allah si fiican u iidan leenahay ma sha barkala أنا مقعد على حسين إبراهيم جامع والله الحمد لله سيف عم بنود يرجعوني خميسيان قادرني دتك ودش داد بيدو ديان إن إيدني محكور هذا دتك آدي أد بيجود يرجعوبي أنا الحمد لله عيد مهمة وأنا عيدي إسلامك وأنا لبضع عيدود وين عيدها إسلام كم ده مركا قف كستو مسلمة سيدي تبرتي سايد يجود يرجعوبي مركا وأنا كارك كرتا جوجا السوق هذا سيد عدد كويهين طبعا المايق وعيديا أنا قلفت وعيديا وأنا آد بانو فرح سنة هاي وأنا عيد وأنا أقسم الله يا مسلمين تودن ميل على مشي جوجا مركي لجارو سوقتي وأنا دير جروب أنا قم مجيء اللي راه يوسف عبد الله آد بون سلام يا دمان مسلمين تودن معلومات دير جروني قميصان قدني عمامدان قدني كمان قدني مسلمين تودن معلن حرجين إن شاء الله تعالى نسفان وعيدان horta aniga waan iidaya iyo macal xaaska iyo cidaba waayo iidda hore iidda kaleeto waxay kala duwan yihiin iidan waa iid oo Ramadaan muslimkii dhan muslimiinta dhan meel kasta joogan way sooman yihiin muslimiinta kulli meel walba joogno ciidina kullana caam anta bil khair waxaan dhihi lahaa dhalinyarta waa ciida aad baa loo ciidaa aad baa loo faraxsan yahay meel walba joog wadada loo maray leeyahay aadana ugu faraxsanahay ciida
guud ahaan ummadaha islaamka ee ku nool daafaha dunida ayaa si lamid ah sidan ugu diyaar garoobaya farxadda ciida iyagoona ka soo faa'iidaystay bisha barakaysan ee Ramadaan. dadka ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa waxay ku sheegayaan in ciidan u diyaar garowgeeda ciidihii hore waxyaabo fara badan ay ka duwan tahay waxaana ay ku sheegayaan in dhibaatada ay ka jirto dhanka dhaqaalaha oo isbedel uu ku yimid. Maxamed Cusmaan, Royal TV, Nairobi.